sallam waxa ballan ku qaadaya ninka umleeyana isku qarxi doono adduunyo rajo kamali Showmal oo habeen hore ku qabtay muxaadaro uu sheekeynayay safarkiisii Muqdisho iyo dhibaatada ka soo gaartay ayaa ka waramay in wararka been abuurka ah ee la soo galiyay baraha bulshada ay dhibaato u keenaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka asaga aadka ugu dhow sida qaraabadiisa asxaabtiisa iyo dad kale wuxuu ka sheekeeyay qiso ku dhacday oo ah wiil baraha bulshada soo dhigay muuqaal yar uu soo duubay oo ku sheegay inuu isku qarxinayo Sheekh Umar kadibna Nabi Maxamed uu la kulmayo jannada markuu tago Sheekh Umar oo arrinkaasi ka hadlayay ayaa sheegay inay ahayd arrimahaasi arrimo kale oo badanba oo baraha bulshada lagu soo daadiyay markuu xamar joogay sida in guriga lagala baxay ama hotelku degnaa lagala baxay suufida la baxeen warkaasi uu dhan uu yahay war been abuur ah oo aan loo baahnayn in la faafiyo digniinna u diray dadka faafiya baraha bulshada ee waxyaabaha been abuurka ah qisada Sheekh Umar iyo wadaadkaas ayaa u dhacday sida tan wiil yar waxa ka soo baxay social media leh Sheekh Umar baan isku qarxinayaa markaan isqarxiyo Nabi Maxamed baan u tagayaa ii soo duceeyo salaam ani waxaan ahay nin suufiya oo qaadiriya waxa isoo gaaray inuu ninka leeyahay Umar inuu imaado doono koonis oo ku qaban doono muxaadaro aniga waxay dhaba maxabada nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa ballan ku qaadaya ninka umleeyana isku qarxi doono adduunyo rajo kamali saaw aalo waa u jeedin wallahi suma wallahi waan isku qarxi doonaa adiya isku qarxin adiya dhinto haliiso nabiga la jirahay sallallahu alayhi kulli dadkii waxay yiraahdeen warwadaada inta lagu qarxin soo cararday wadadkii asxaabta ah wadad war waxan wax jira ma meediyu soo wax u bubnay wax ma jira mar waxa la yiri hotelkii ba loogu dhacayo wadaadkii waa la cararayba telefoonka ugu soo dhacayo warsha xageed joogta war ma lagu helay war ma dhaawac baad marka kadeedanay ummadii waxa ka maqan war waxan meesha lagu soo daadinayo 99% wax jira ma ruux qol galay oo muxuu ahaay isa sawiray oo laga yaabo inaan la weelinin xataa telefoonkiisa isku sawiray waa soo tuuray markaas waxa lagu leeyahay balaya dhacday marka waxay naga maqan mabaadiidii tathabutka in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu waxin la iska hubiyo kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a abu nabi sallallahu alayhi wasallam waxa dambi been waxa ugu filan wuxuu maqlaba inuu ku sheekeeyo ama sheer gareeyo ama sii faafiyo raaxan wax jira ma marka waa duruus marka waxaad arkaysaa hadda dadka sheer gareynaya commentiga bixinaya moogsoontihiin markii la doonayo barnaamij in la faafiyo hal ruuxa baa wuxuu soo xidhanayaa 100 shaati 100 magac buu wuxuu ku soo galayaa social media soo saamul socota waa ruuxogow markaasuu comment gareynaya magac buu comment gareynaya hadana ku kala war barnaamijkii ummadii baa ka hortimid baa la leeyahay war maxaa goor yimid hal ruux oo kolba shaati noo xidhay waa sida oday jirjirooli marka waxa jira iyo say wuxuu jiraan hadayna wacyigeeda yeelanin waxa dhacaysa marmarka qaar kood in god la inagu tuuro saas daraadeed social media iyo waxa ka socday iyo dhageysi rumaysigiisa aad uga taxadar tan ma kaliya ma laakiin mabda ahaanba waxay u baahan tahay inaan duruus ka yeelan sallam waxa ballan ku qaadaya ninka umleeyana isku qarxi doono adduunyo rajo kamali Sheekh Umar oo habeen hore ku qabtay muxaadaro uu sheekeynayay safarkiisii Muqdisho iyo dhibaatada ka soo gaartay ayaa ka waramay in wararka been abuurka ah ee la soo galiyay baraha bulshada ay dhibaato u keenaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka asaga aadka ugu dhow sida qaraabadiisa asxaabtiisa iyo dad kale wuxuu ka sheekeeyay qiso ku dhacday oo ah wiil baraha bulshada soo dhigay muuqaal yar uu soo duubay oo ku sheegay inuu isku qarxinayo Sheekh Umar kadibna Nabi Maxamed uu la kulmayo jannada markuu tago Sheekh Umar oo arrinkaasi ka hadlayay ayaa sheegay inay ahayd arrimahaasi arrimo kale oo badanba oo baraha bulshada lagu soo daadiyay markuu xamar joogay sida in guriga lagala baxay ama hotelku degnaa lagala baxay suufida la baxeen warkaasi uu dhan uu yahay war been abuur ah oo aan loo baahnayn in la faafiyo digniinna u diray dadka faafiya baraha bulshada ee waxyaabaha been abuurka ah qisada Sheekh Umar iyo wadaadkaas
ayaa u dhacday sida tan. wiil yaro waxaa ka soo baxay social mediaha leh sheekh umal baan isku qarxinahayaa markaan isqarxiyo nebi maxamed baan u tagayaa iisoo duceeya. ani waxaan ahay nin suufiya oo qaadiriya. waxaa isoo gaaray inuu ninka la yidhaaho umul inuu imaan doono koonis oo ku qaban doono muxaadaro. aniga waxay iga dhaba maxabada nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam. waxaa ballan ku qaadayaa ninka umul yidhaaho inaan isku qarxi doono adduunyo raje ka malihi saaw aalo waa u jeedin wallaahi suma wallaahi suma wallaahi waan isku qarxi doonaa haddii aa isku qarxiin haddii aa dhinto haliisoo duceeyo nabigaa la jira allahumma salli wa sallam alayhi. kulli dadkii waxay yidhaahdeen war wadaada intaan lagu qarxini soo cararbayna waa dadkii asxaabta ahaa waa dadki war waxaan wax jira maaha miidiyuusu wax u burbuni wax uma jiraan. mar waxaa la yidhi hoteelkii baa loogu dhacayoo wadaadkii baaba lala cararayba telefoonka ugu soo dhacaya war sheekh xageed joogtaa war ma lagu helay war ma dhaawaca baata. marka kadeedanay ummaddii waxaa ka maqan war waxaan meesha lagu soo daadinayo 99% wax jira maaha. ruux qol galay oo muxuu ahaayey isa sawiray oo laga yaabo inaan la weelinin xataa telefoonkiisa isku sawiray baa soo tuurahay markaasaa waxaa lagu leeyahay balaayaa dhacday. marka waxay naga maqan mabaadi'dii tathabutka in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayyanu wax in la iska hubiyo kafaa bilmar'i kadiban an yuxadita bikulli maa samica buu nabigu sal alay wasalam. ruuxa dembi been waxaa ugu filan wuxuu maqlaba inuu ku sheekeeyo ama sheer gareeyo ama sii faafiyo raaxan wax jira maaha. marka waa duruus markaa waxaad arkaysaa xadda dadka sheer garaynaya commentiga bixinaya ma ogsoontihiin markii la doonayo barnaamij in la faafiyo hal ruuxabaa wuxuu soo xidhanayaa 100 shaati 100 magacbu wuxuu ku soo gelayaa social media saam ula socotaan waa hal ruux ogow markaasuu commenti garanaya magacbuu commenti garanaya haddana ku kalo waa wareey war barnaamijkii ummaddii baa ka hor timid baa laleeyahay war maxaa ka hor yimid hal ruux oo kolba shaati noo xidha waay sida oday jirjirooli. marka waxa jira iyo say wuxuu jiraan haddaynan wacyigeeda yeelanin waxaa dhacaysa marmarka qaarkood in god laynagu tuuro. saas daraadeed social mediaha iyo waxa ka socdaay iyo dhageysi rumaysigiisa aad uga taxadara. tan ma kaliya ma laakiin mabda ahaanba waxay u baahan tahay inaan duruus ka yeelano.